kulan kanu maanta badhasaabka gobolka Awdal Cabdo Axmed Ayar la yeeshay madaxda laamaha dawladda ee heer gobol isla markaana lagu gorfeynayo tahriibta waxa uu ku soo beegmaya waqti mar kale ay nabaradii tahriibtu ku soo laba kacleeyeen dadka reer Boorama isla markaana guud ahaan gobolka dhibaatada tahriibtu ay noqotay mid si toos ah iyo si dadbanba u saameysay dadka badhasaab Cabdo kulankaasi ka hadlaya ayaa waxa uu qiray in gobolkan uu noqday mid ay dadkiisu tahriibayaan isla markaana helin halaq mareena u noqday dad badan oo tahriibayaala gobolka toos weyn baa ku soo koray oo ah tahriib dhalinyaradiisa iyo kuwii gobolada kaleba oo soo maray in xoog looga baxo waa faqran wajiilkii qaranka u soo kacayay waxa ka baxaya dalka waa mustaqbalkii dalkeena mar kale waxa uu badhasaabku sheegay in tahriibta waqti xaadirkan soo cusboonaatay ay tahay mid aad u abaabulan isla markaana loo baahan yahay in gacanta lagu soo dhigo cid walba oo ka dambaysa waa silsilad isku xidhan dad baana tahriibta fududeeya silsiladaasi waynaynu helnaa ciidamada amniga waxaa laga doonayaa arrintaas sidii ay u heli lahaayeen ay u furfuri lahaayeen si kastaba ha ahaatee badhasaab Cabdo waxa uu madaxda laamaha dawladda ka dalbaday inay xal arrintan ka keenaan gobolkeenu waa inaanu noqon ka laga tahriibo gobolkeenu waa inaanu noqon ka gobolada kalena ay u soo maraan tahriibta xaalka sidan ah iyo hindisaan wacyigelinta u badan ayaa waxa ay dad badani tilmaamayaan inaanay haba yaraatee magdhow u noqon karin dad tiro badan oo carruur ay ka tahriibeen isla markaana hantidooda xaraashay taasina ay u dheer tahay carruurtoodii muddo hore ka tahriibtay oo ilaa maanta ah midaan dib u soo laaban Cabdalla Cali Yuusuf Home Cable TV Boorama.